haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo hayo axmed faarax cali hidaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin, waxaanse hubaa badiba hal abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. rag iyo dumar qof hebel la yidhaahdaa dhacdo uu ka hadhi karay ma ahayn. ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay. hal abuuradii xilliguna kuma basii jirin, oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. maanseyahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare. gabay dheer oo 1937 uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galladay takhtarro daboolkii mugdiga uga miciinay, araggoodiina u soo celiyey. ay noqotaba ololihii farbarashada ee beryahaas lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseene u gargaadhe soomaaligii guuray waa hore gal baad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraayee goortaad qorteenka ayagii wadagaliiliyoonne. laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saaraayee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay. waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-adii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa. markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka. shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan, imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan, haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcata. dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariye mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin. taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la odhan jiray cabdilcasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq. cabdilcasiis daqarana loo yiqiin. wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray, una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay carruurta soomaalidu ku qabtay. markaas buu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo, isaga oo u hambalyeynaya, tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo, carruurtana loogu habaayo. waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa, waa lagu hakranayee afyow hodan inaad tahay waa eray hubaale, halyeegeenna taliyaa kaa xooray haylihii hulaabtaad ku raagteen. haa kaala maantaba sow howlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinki weeyaan,
haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha horseede haakaalla maantaba sow howlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. axmed cali cigaal ayaa ku luuqeeyey codkana u yeelay. barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadiniyo ku kale hadduu eebba idmo.